مدحوينها أصلا كلمة الصحيح وواحد سكيورتي للتلي فأنا كده أكثر زمان أنا أقول حصلنا إن وده كان وقنا عليه لما ما أكثر وقناشة أنا كأيت أقول لنا لما وقتنا وحنينا بس نجرب وقت هاي أنا وضع أسبوع هذا عمله وعن كل حصلنا هيك أنا أتصل بالإستاف كان كوميونتي وحنين وكلمات الموبيل وكيل الصومالي كذا وهذا كسر زيادة organization كقلبات برجع يا برتماها أفريقيا إستاف كوميونتي هذه ولاية إستاف كوميونتي أهم هذا يسافر إن ولاية الصومالي عمالة تكلم عنه أنت مال بليان وهو تلقى شركة جروب أستاذ فاسمع هذا شيء مهم إن أنت الله جميل كبرنت الصومالي مال بليان تمام مثلا سنة مثلا كل ما نقول عندنا رأيك في حالة أن تبدو كرنا إن فارغ يقول وطن كتغالي سكتنا وحالة من سنة أمهي كتير كرنا إن تغالى وسمعه نقول عندنا مال بليان تسمع كل جمال أولا في كاري جميل وشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وزير كينا قاشانديقة كينيا مدن آدم برد الدعالي حلوان كينا حلوان يوسف حسن حلوان كينا رقاريسو حلوان ميجاديكو بدونيما BBS مول معانيولي CEO أمباسدر كينا الصوماليا أمباسدر جبريل iyo xildhibaaniinta kale iyo CEO business community iyo dhammaan mas'uuliyiinta joogo soo dhawaada madaxweyne aad iyo aadan caaw faraxsanahay taariikhda Soomaaliyeed iyo taariikhda isli meel baad ka geli doontaa waxa tahay madaxweynaha ugu horeeyay ee soo booqdo xaafadda isli ee Soomaaliya ku soo booqdo caawa waxaan ku leenahay soo dhawow waxaana sabab u noqday إلهي كسكو ولكن معنولي مولك إنتا ليك بسي هانتين إنتا ليكنا حافظ جلي حافظ إسلي وليسو شقيي حلوان كان يوسف عصن وقت بدن يجلي وحيالة بدن غرمرة ليس بي شو الصومالي دا وهانتو قشتو ما انتنا وحنا أركيسو وواحد علىها يكشقيين صومالي دا حافظ إسلي نقالها وصي نيروبي بقول كيو صدن يستحي على يقاوا دغالا كاونتي نيروبي وانا ميشا ugu badan ee dalka Kenya madaxweyne soo dhawow dawladda Soomaaliya waxa tiri dawladda heshiis iyo dunida heshiis leh markaata ayaan ka nahnaa waana aragnay waxaan ku leeyahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan si kale laab u soo dhaweeyo xildhibaankeena xildhibaan Yuusuf Xasan si xildhibaaniinta kale iyo mas'uuliyiinta kale u waco xildhibaan Yuusuf Xasan soo dhawow madaxweyne waxaan ku leeyahay dawladda Soomaaliya maadaama ay ku soo beertay East Africa anagana garab weyn aan kaaga yeelanay in xaafadda ragaarinta laga dhisto xildhibaan Yuusuf Xasan soo dhawow xildhibaan waana mahadsan shacabka xildhibaankaana aad baan loo soo koobi karaynin bay noo tahay anagu in nala joogo galabta tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne حسن شيخ محمود وحنا قنصنايا ولكن وزيرك قاشانديقة ولا سعودة آدم برد عالي وحكرتون سود وينيا ولكن
Major Deeqo Barow xildhibaanka Township waxaan soo dhawaynaynaa safiirkeena saaxiibkay Jibriil oo la socda iyo wafdiga madaxweynaha la socda waxaa kale toon haddee nambarka ugu horeeya ee halkan isugu wada kaaya keenay ninkan maskaxda badan geesiga ah ee dhisay nation macallin weli iyo gudoomiyaha CEO-ga BDS Munir Ahmed marka waxaan doonayaa runtii madaxweynaha anigu muddo dheer baan isnaqiinay intuusan madaxweynaha noqon markuu madaxweynaha noqdayna waa markii qaraxa igu dhacay ee aan burburay dhowr jeer buu igu yimid halka Nairobi intaan anigu isbitaal ku jiro dabcay inuu igu yimaado maraykankana maraan isbitaal ku jiray New York madaxweynaha salaam buuna ii soo diray taageero aad u culusna uu ii siiyey marka had iyo jeer sida walaaltinimada iyo kalgacaylka ee uu ii ilaaliyey waan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtina deegaankan waa deegaankaagii magaaladan Islii waa magaalo Soomaaliyeed hantidii Soomaaliyeed baa taalla waa magaalo aan ku faano dhismaha BDS-kana wax weyn buu ka bedelay wejiga xaafadan marka haddii uusan ahayn macallin weli nooma suurta gashay maanta inaad halkan noogu timaado meeshan quruxda badan aad ka suurta gasho taariikhiyanna waxaa tahay madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliyeed ee cagihiisa ku yimaada magaalada Tennessee markaa soo dhawow waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena gaashaandhigga aadan barre ducaale madaxweynahana markaasi uu ka codsado inuu nala hadlo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxabka wasiirka soo dhaweynta macallin weli way dheer tahay ilaahay xoolaha u badiyo dadka meesha ku ganacsanayana ilaahay ganacsigooda mid ay ku faa'iideen ay zakada ka bixiyaan oo madaariista ku dhisaan oo masjidka iyo masaakiinta lagu quudiyo oo qadiyo ha noqoto meel ummadda Soomaalida iyo ummadda muslimiinta ay ku fahmaan dowladda madaxweyne William Ruto iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baryahan dambe waan isu shubannaa baryahan qaraabo dhowaan nahay arrimo badan aan ka shaqaynaa amniga labadana waddan aan ka shaqaynaa dhaqaalaha labada waddan aan ka shaqaynaa jiritaanka labada ummad oo waddanka Kenya iyo Soomaaliya ayaan xiriirkooda ka shaqaynaa ganacsiga labada waddan ayaan muhiimad siinaa haddana waan ku faraxsanahay inay dowladda u hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku soo biirtay isbahaysiga East Africa Community oo ah isbahaysi weyn oo dhaqaale oo gobolkaanada ah anigu waxaan usoo shaqeeyey intaan joogay madaxweyne fara badan oo Soomaaliya Sheekh Shariif madaxweyne Xasan safarkiisii hore madaxweyne Farmaajo haddana mar labaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qofku waa loo qiraa markuu maaragtay isbedel u keeno Soomaalida ma samaynayo maamaha fara badan laakiin Soomaalida waxay dhahdaa soddon iyo laba sano ka hor ayaan imid xaafadan Islii maalintaas iyo maantana wax la isku soo dhoweeyo ama isku dhow maaha sida ay Islii ku timid iyo sida maanta ay ku taalo waxay ku dhacday dhowr waxyaabood oo isku yimiday dowladda Kenya iyo shacabka reer Kenya
oo ah dad gacmo furan soo dhoweyn badan dulqaad badan muujiyey tolerance ama dulqaad aad iyo aad u weyn iyo dadka Soomaaliyeed oo ayaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday aaminay wixii ay heli kareen ama ay haysteen la yimid halkan marka wanaagga ka muuqda maanta Islii waa wanaaggaas magaaladan xaafadan Islii waxaan joogay iyada oo hal bangi oo KBS KCB Kenya Commercial Bank hal branch oo ku leeyahay oo bangi kale oo ku yaala aanu jirin maantana waxaa la ii sheegay meeqa bangi ah suuqan ka furan 15 branch oo bangiyo waaweyn oo kala duwan ah in ay ka furan yihiin suuqan keliya ayaa la ii sheegay marka horumarka intaas la eg ayaa muxuu ahay ay soo dhaqaaqday markii la isku tago la iskaashado la is aamino intaasaa ka dhalan karto waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ma aha Soomaalida Kenyaanka ma aha Soomaalida Soomaaliya ka timid ama Soomaalidii Soomaaliya ka timid ha ahaadaan wali ama muxuu ahay ha qaateen dhalashadii iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Kenyaanimadii Soomaalida waxaan leeyahay waddankan iyo dawladdiisa iyo dadkiisa abaal aad iyo aad u weyn ayay nagu leeyihiin markii duruufaha adag Soomaaliya ay qabsadeen oo dadka Soomaaliyeed kii wax yar haysta meel uu ku ganacsado u waayay wixii si yaraayo soo qaatay halkaan oo la yimid waana ka faa'iido waana ku bulaalay wax badan ayaynu wixii u noqdeenoo waad u jeedaan muxuu ahay hantidan maanta meesha ka muuqata hadday tahay dhismaha hadday tahay dadka ku dhex ganacsanaya intaba markii dadkeenna inta nugul ay u suuroobi weyday inay dalkeenna gudihiisa ammaan ku helaan oo ay joogaan dalkeenna gudihiisa markuu ammaanka ku dhib batayna way soo baxeen halkaana yimideen boqolaal kun ayagoo ah ayaa magangelyo la siiyey nabad ku noolaada waxbarasho aqoon maxaan ku yiraahdaa wixii adeeg bulshada u baahnaayeen oo dhan iyo ammaan ay dalkan ku heleen waa ku ilmo dhaleen ilmihii la dhalay ayaa si ilmo dhalay oo maxaan ku yiraahdaa ku si ilmo dhalay halkan kan ma shaqaynayo ilmihii ku dhashay magangelyadaas iyo xeryaha muxuu ahay qaxootiga ayaa ilmo sii dhalay marka 3 generation in ka badan ayaa meeshaan isugu timid marka abaal ay nagu leeyihiin dadkaasoo intaas meel kasta lagama helayn intaasoo dhan marka generationska intaa la eegan meeshaan wax ku bartay ee ku dhashay qaarkood Soomaaliya aanay arag laakiin Soomaali haddana ah ayaa joogo oo hadda dalkiina noogu yimiday ayagoo aqoon leh dhaqaatiir ah injineer ah maxaan ku raayay wax walba leh ayaa maanta dawladda Soomaaliya u shaqeeya dawladdiska Soomaaliya ay ka qayb qaataan dalkan marka wanaaggaas uu noo galay badiilkiisa inaan lacag siina noogama baahno inaan ciidan u keennoon amnigiinaan sugaynaan niraana noogama baahno ayagaaba amnigeena wax ka sugan hal wax ayay nooga baahan yihiin hal wax oo aad iyo aad muhiim ayay nooga baahan yihiin oo abaalgud u noqon kara abaalka weyn ay geysteen hal si ayaan ugu gudi karnaa oo weyn siyaabo badanaa jiro laakiin mid waa maxay inaan ilaalino qawaaniinta dalkan uu leeyahay inaan ilaalino dhaqanka ay dadkan leeyihiin oo aanan dhaqankooda iyo qawaaniintooda iyo habnololeedkooda aan mar walba ixtiraamno oo aanan muxuu ahay aanan wax ka sheegin dalkaani qawaaniinta uu leeyahay waaye midda aad ku badbaadeen oo aad ku bulaasheen sidaas daraaddeed qaanuunka dalkan u degan aan ilaalinno waa abaalgudka ugu fiican oo aan sii karno
intaa kadib aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin macallin muxuu ahaayey weli iyo raggiisa fikirka keenay ee maalgeliyey ee quruxdan ka soo saaray moolkaani yacni wuxuu meesha ku oolayaa haddii ilaahay uu nabad keeno qarniyaaluu meesha ku oolayaa bas hal midaa cawada meesha ka raacayso macallin weli sida haddaatay muniirna uu sheegay kanoo kalaa laga rabaa soomaaliya inay ka dhisaan isaga BBS 2 kan waa 1 2 ayaa laga rabaa soomaaliya inay keenaan dowladda soomaaliyana inay soo dhawayso ay u fududayso oo ayna muxuu ahay difaacdo maalgashigaas dalka soomaaliya markii ugu horreysay qawaaniin la yidhaahdo investment protection law oo ilaalinaysa oo xifdiyaysa oo difaacaysa wixii maalgashi ah oo dalkaas la keena ayay leedahay qawaaniinta noo sababtay waaye in dayn cafintiina la siiyo oo hay-adaheenna muxuu ahay dhaqaalahan caalamku u aqoonsaday ka mid tahay kuwayo badanaa dowladdu ay samaysay sidaas daraaddeed mar kale iyo mar kale waxaan hambalyaynayaa macallin weli iyo tiimkiisa waxaanan u mahad celinayaa dowladda kenya iyo shacabka reer kenya soo dhawayntooda iyo martigelintooda iyo saaxiibtinimadooda oo wax badan soomaaliyana u tartay soomaalidii halkan timidna u tartay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu